In ka badan 200 arday oo ka qalin jabiyay jaamacadda Golis Faraceeda magaalada Burco ayaa maanta u anbabaxay dhankaasi caasimadda magaalada Hargeysa taasi oo lagu wado inay ka qabsoonto maalinta bari ah munaasabad ballaaran oo koobsanaysa qalin jabinta ardaydaasi iyo sanad guuradii aasaaska jaamacaddaasi ardayda kala duwan ee wax ka barata jaamacadda Golis iyo macallimiinta jaamacaddaasi ayaa maanta si ballaaran u sii sagootiyay ardaydaasi waa kuwan maamulka iyo ardayda ka qalin jabisay jaamacaddaasi oo ka warbixinaysa ujeedada safarkoodani daaran yahay iyo qaybaha kala duwan ardaydani ay ka qalin jabiyeen ma sha Allah maanta waa farxad weyn baan hadaan nahay baahda jaamacadda Golis waxaanu maanta aanu anbabixi doonaa anaga iyo ardayda qalin jabisay ee jaamacadda Golis Burco caasimada dalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland halkaas ay ku qabsoomi doonto qalin jabintii guud ee u dhacaysay dhammaan jaamacadaha Golis iyo xalfad labaad munaasabad labaad oo ku dhex jirta oo ah toban guuradii jaamacadda waa guul u soo hoyatay baan leeyahay marka ardayda marka ka qalin jabinaysa dhamaan maanta maxay ahayd soo qalin jabintan maanta halkan waxa jooga oo maanta ka baxaya Burco waa shan fakal ba ka baxaya waxa kamid ah fakalka ICT-ga fakalka clinical medicine-ka fakalka MSIT-ga fakalka engineering-ka fakalka education-ka shanta kuliyadood ee maanta ka baxaya Burco shantuba wax weeyaan waa graduate waa dadka qalin jabiyay maanta safarkan aan u baxayno Hargeysa ujeedadiisu ay tahay si loo weyneeyo maadaama jaamacaddu ay toban guuradeedii ay tahay oo 10 sano u dhamaadeen ujeedada iyadoo markaa xafladda aan aad u weyneynayno ayaa sababtay in Hargeysa la isugu tago xafladdaas oo laba xafladood isugu jirta sanad guuradii tobnaad ee jaamacadaha Golis iyo graduation-kii 2015 على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم runtii maanta waa maalin farxad weyn leh maadaama ay tahay toban guuradii ka soo wareegtay aasaaskii jaamacadda Golis saal ajligeedna aynu tagayno maanta safar aynu ugu baxayno si aynu ugu soo qalin jabino jaamacadda meynka ah ee Hargeysa sidaa darteed waxaan leeyahay ardayda ka qalin jabinaysa dhammaan jaamacadaha Golis Hargeysa Berbera iyo Burco hambalyo to wish all the graduates and the participants a very happy and congratulative day. I say hambalyo for the good work they've done all the years long. As we are going to mark this graduation ceremony for them, we wish them all the best. Hambalyo. Waxaan u hambalyanayaa dhammaan beesha Golis, jaamacadaha Golis oo 6 xarumood kala ah. Waxaan meeshan ka cadeynaynaa maanta inaan u soconno laba xafladood oo isku kaana jirto oo qaybta Hargeysa aan u socono headquarter-ka ayadoo noo noqonayso mataqaanaa labada xafladood oo nagu waaweyn midna waa sanad guuradii tobanaad ee Golis midna waa xafladii caadigeed oo sanad walba noo dhici jirtay ardayda si kastaba ha ahaatee ardaydani ka anbabaxay magaalada Burco ayaa noqonaysa dufcadii saddexaad ee ka qalin jabiyay jaamacadda Golis Faraceeda magaalada Burco waa Khadar Cabdirasaaq Saleebaan shabakada caalamiga ee Hadwanaag News magaalada Burco